markaan kusoo dhawaada liverpool sanadkan sida loo maleynayo ma waa soo adkeys waxa way adag tahay yani in liverpool la dhaho wax ma soo saxiixan waxay horta iska dirtay laacibka weynaa ee Mane iska dirtay oo yani laacibka ogtihiin Afrikana ka ah yani laacibin macaadihin sidoo kale Premier League Champions League wax u sameeyay waa ogtihiin Liverpool marka Liverpool say ku dirtaa la weeraryahankaas inaba caadihin say ku dirtay waxay fikirtay laba ciyaartoy ayaa kaga baahan mushaar cusub inuu saxiixdo waa Mane iyo Mo Salah wuxuu yiri horta ma saxiixay haddaan lacagta aan rabo laysiinin wuxuu dhahay ana adduunka ugu qaalisan in laga dhigo way yaabeen Liverpool way yaabeen marka xisleehan labadooda hadii ka tagaana waa idin dhamaatay marka midkii roon dira Mane mushaar yar oo qaadanaya marka waxay dhahan ninka mushaar yar oo qaadanaya uu qanacsanay hadoo mushaar asagana dalbado hawada ku cuna marka Mane afuzaaday sababta Mane yadii isku fiiriyo Salah yani gool badan oo sanad kasta wuxuu sameeyaa wacdara in macaadeen inkastoo laacibka garoonka markasta ahayn oo Mane oo kasoo dhex muuqdo oo yani difaacyashan nafta u keeno saasay tahana waxaa la dhahay Mo Salah reebanina ka bacdina cunug yaro aan ku bedelaan soo gadanayna marka Mane wuu tagay Bayern Munich oo tagay wuxuuna qaadanaya lacagtiin wax yar u kordhiyeen oo ninkan waqtiga sanfalo waaye wadankiisa iyo magaaladiisa wax badan oo ka sameeyay marka mushaar yar inuu qaato waa qalad contractigaas inuu ka booday oo wax weyn markay soo dalbato hor ka aado lacagtiisa way dhacday dhib ma lahan hadda wuxuu joogaa Bayern Munich oo ku raaxaysanaya lacag fiican waa la siiyay mushaarkiisu waa mushaar fiican oo la kala iska normal waaye marka Mo Salah saxiixay mushaar culusna uu qaatay 3 sano ayuu u saxiixay Liverpool heshiiska isku afkartay wuxuuna qaadan doonaa 350,000 maba dhicinba Liverpool in oo ciyaartoy ay ka qaataan yani isbuuci intaas 350,000 isbuuci kaliya marka wuxuu noqday ninka ugu mushaarka badan ee Liverpool abid qaatay yani mushaar taas u culus wuxuuna saxiixay 3 sano saxiixay booska Mane waxay ku bedeleen wiil la dhahay Nunes waa weeraryahan inaba caadihin oo Mane booskiisa bedeli karo waa da'yarna waa 23 sano jir marka Benfica ka soo qaateen oo waxa weeraryahankan oo dhaarsan yahay Premier League hadda imaaday marka waxa laga yaabaa inuu gool badan dhaliyo Mane laga maarmo sababta Mane waa sii duqoobay marka waxa loo baahan yahay dhalinyaro fresh waa loo baahan yahay Mo Salah uu jooga oo saxiixay sidoo kale waxay soo saxiixdeen laba ciyaartoy yariisa oo qadka dhexe iyo sidoo kale difaaca qadka dhexe marka Liverpool si smart ay u soo adeegataa markii soo adeeganaysa suuqa kale iibsiga ciyaaraha